naftoodii bay ciqaab dul saareen ciqaab baa ku dhacday muxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ciqaabta maxaa kamid ah laa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam yafsha fiihim waladu zina ummadaydu khayr bay ku sugan tahay intaan caruurta awlaadu zinada ah oo garacyada ama wiciladu ayna ku dhex faafin meeqa wicil ba haddana dhex joogto meeqa gabdho dhalaay ilma aan aabbahood la aqoonin فإذا فشى فيهم ولد زنا هدي عنق زنا هدو ينادوا أركتان عنق زنا أو تربضا هذا أركتين أو شك أن يعمهم بعذاب إلهي عذاب مدفك عبد الصارع وحديث الإمام أحمد وري ليش كويس كي زنا كتمد وكبل وضع عقابته دتك عقاب إلهي دو صارع أكو فكرين إن أركتين قصد زنا سنية وزندي إلهي سمينيا وقف عفيف أوصل لمدة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اسكمين معه ما ذكرت قلبك كويسة والنرجيت انتهي وزنيتي ونوجه إله هو غفور رحيم هذا طولتك أنت وقاد عافية لكن أنت الزند كيف كمد أكون جرت ولو ها تلفون ولو ها انترنت أفكد أوتي في المان قاقاون ولو ها تعكلدو انت أزنا كنت جرتو عقابتها سكان هريس محاكم إذا إخواني عقابتها وحاكم إذا زوال البركة من الرزق رزق يا إلهي بركة لك قاضى وحكست أوصق يسي بركة ملئ بركة ما يالني وعليك التقفك إنه ضهاء وروان دلاليا انت ورديا انت وشقينيا رزق برا كمل ويسقى وسجل كذا ان ممكن دعوانا يعني تلفون معاونة كهلا يا تجلس ما شيء انه دينيا ناقص قوابو دريا تبكي وحيارها لي ابو حكم ده وحال لي يري ان غريها هذا وحيارها كدعايا لان يرون الزنا وما هيستان وهذه كتقفت اللي يرى انه 10 ساعة اما 5 ساعة وتلفون كلها اللي يقف اجنبية وكلها الله سريت وستيدو كجرا وهردا هويا waxay tooyooyinka kamida gurigeyga jin baa ku jiraan umaleyn oo markaan qofka ciyaalka galada hadal baa yeeray markaan soo galan ciyaalka way hurdaan ilaa gabadha dhagta hoosa telefoon ugu jira ma la oga busteenu huwanta caawna wasaas wasiiraysanaya caawna sidoo qofki ku jira صدقي waxay leedahay markii iskuulka la kicina ma la kicin karo oo xal dhimi hurda gabadha maxaa ku dhacay oo qof xal dhinjina ku jiray waxa ikhwaani waxyaabaha ciqaabtaasi keenta waxa kamida ciqaabta waxa kamida nabigu inuu yiri lam tadhhar al fahishatu fi qawmin hatta yu'linu biha fahishadu qala kuma faafto intay muujistaan illa fasha fihim al awja' udhaba ku faafo dadkaas udur baa yimaada jirta ilaaha ku imtixaama waxaan la yaabay qiso mubki ah oo qofkii dhageysto wallahi uu ooyayo ayaa waxa ka sheekeeyay wiil sacuudi ah oo dhalinyaro ah wuxuu wiilkaas leeyahay wiil aad u fiican caafimaad qaba asagoo ah oo maalin suuq dhex maraya ayuu wuxuu arkay gabadh aad u qurux badan oo niqaaban oo meesha maraysa waxa dacay inaan gabadha faduuliyo uu ka daba orday uu la hadlay meel dukaanahay gashay markaa wuxuu dhaafay oo soo fiiriyay bagacanta saas itiri waa calaamad cadeynaysa inay rabto markaasaan istaagay meel baan isku leexiyay way ii timid markaasay tiri uu yiri telefoonkaaga isii telefoonkiiba isiisay yaan sii habeen barkii bay soo wacday oo qasaan dhageysta waa waxa inta badan hadda dhalinyarada ka dhaxdhaca wixii markay soo wacday gabadhu waa isbaranay maalmaha sheekaysanay waa isjeclaanay waxa ii sheegtay inay tahay gabar garoob ah inay tahay ii sheegtay waan wuxuu yiri waan is aragnay makhaayadaan isu raacnay waxay ugu tiri lacag baan leeyahay qof lacag le baan hay oo dumar oo business woman ah laakiin lacag baan leeyahay wuxuu yiri waa gabadh aad u dhowrsan makhaayadaan wada tanaan wada cashayna inaan sa u taabto ma ogola wuxuu yiri muddo markaan joognay waxaan isku day jiray inaan taabto wax ku sameeyo way diiday muddo markaan joognay ayay maalinta waxay tiri uu yiri niyo waxaan rabaa inaan si degdeg ah igu timaadid ana ordayaan intay makhaayad kaasay tiri uu yiri waxaan rabaa inaad tigid baan ku siinaya tigid bay siisay tigidkan qaado qaahira aad sacuudigu joogaa business baa ii imaanaya shirkad noocaas alaab ii keenaysa hotelka noocaas deg markaad degtay telefoonkaas waa marka qofkay ka qabto waxa uu dhahdaa alaabtaas aan rabay heblaaya mas'uul aan ka ahay waraaqna way ii saxiixday buu yiri inaan mas'uul ka ahay waa farxay gabadhi maanta waxay ku dirsatay
shaqadii uu fasax ka qaatay waa la ii diiday fasaxi waa la dagaalamay ninkii booska ahaa markii dambe uu tagay wuxuu yiri markaan qaayro tagay hotel aad u qurxoon baan degay telefoonkii markaan wacay gabadhii baa iga qabatay waxay qolka igu xigay digantahay say tiri surprise ma arbi inaan ku sheega ana meeshan ku balansaday qolkii bay ugu timid gabadhii oo dhar qabta sidii qof dumar la aroosaya gabadhii uu ninkii la seexday wuxuu dhahaa markuu hadlayo yaa laytani hadana tigid ka qaadan lahayn maxaa igu watan u qaatay maxaan telefoonka habeenka u diray hoogayga ee uu dhigi jiray wiilkii maxaa hotelka baas idajiyay gabadhii markuu usbuuc la joogay saddex bar way u exchange tigid u samaysay ayuu soo noqday wiilkii asagoo weli faraxsan isma oga ayaa muddo kadib walaalkii iyo asagoo baabuur la socda baa shil galay accident galay zinadu weli waa xambaartay oo kama toobad keenin shilkii markay galeen ayaa walaalkii baa si aad u dhaawacmay isbitaalka markii la geeyay buu yiri ayaa walaalkii oo dhiig baxaya la yiri dhiig u shub dhiigii baa layga qaaday muddo kadib ay dhakhaatiirta i yimaadeen waxay dhaheen buu yiri iska ilow dhiigaaga walaalkii miyuu dhintay subxaanallah dhiigayga ba isoo celiyeen bi walaalkii miyuu dhintay saalay maya maxaa dhacay may aydis baa qabtaa wiilkii meeshii ku suuxay wuu dhacay weligii muusa u malaynaynin laakiin ilaahay ma moogeyn oo wuxuu sameeyay marka isqurxinaysid iscarfinaysid telefoonada diraysid daahiyada xiranaysid allah kuma mooga waa raqiib atiida ma ku mooga wiilkii asagoo la noqday wuxuu yiri usbuuc kadib bay gabadhii soo wacday markaasay tiri buu yiri saatahay markaasay iribu yiri dib baa igu dhacay walaalkeena wuu dhintay markaasay tiri buu yiri inaan ku arkaan rabaa markaasay ma kuma arkayo maxaa dhacay maya inaan ku arkaan iribu walaalada jiradaas la igu sheegay markaasay qofshay waxay tiri uu yiri waxa tahay qofkii ugu horeeyay waxaana ballan u qaaday rag badan oo adoo kala inaan sax ku sameeyo goodbye telefoonkiina way ku damis ayada jirada qabtay ikhwani ciqaabta zinadu waa noocaas qofku ma mooga zinada markuu sameeyo ilaahay ma mooga ha ogaado waxaan ku soo khatimayaa mawduucan zinada dhibkaas la eg hordadku afar qaybood ogaada qolo waa dadkii ilaahay uu dhowray oo dhowrsatay way dadkii ilaahay dhowray oo dhowrsatay way dadkaas ilaahay dhowray oo dhowrsaday waa dadkii Allah tabaaraka wa taala markuu sheekeeyay uu yaqad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salatihim khashi'un muxuu ilaahay ku daray walladheena hum li furujihim xaafidun ilaahay farjigooda ilaaliyeen dadka sharaf waxay dhahaan maxay dhihi jireen yaa masaajid dhagax dhigi kara waa yaa weligii zinaysanin haddaad weligaa zinaysanin abshir ku bishaarayso bilad dahab oo janna ku bishaarayso oo mu'minta ku bishaarayso haddaad ka toobad keentay Allah waa ghafuur rahiim taazinaysat wa sharaf dadka qaar koodna waa dadka ilaahay zinada ku imtixaamay waylun lahum thumma waylun lahum way u dhamaatay way halaagsameen maalin hadii ilaahay kugu imtixaamay noloshaada inta dhimanaysa ka oy haddaad qayb kamid zinada ku jirta haddana hadda gooy haddaad ninka adduunka ugu jeceshahay gabadha adduunka ugu jeceshahay xiriir la leedahay wax kale ma waa telefoon haddaad la leedahay gooy intaada ilaah la kulma adoo xabaarsan dambigaas dadka qaarkoodna waaba dadka u barobagaandeeyada inay dadku zinaystaan kuwa gabdhaha yarka iibinayay oo kale dadka internetyada u furtay dadka mujtamaca dhexdiisa fasahaadinaya dadka gabdhihii masaakiinta suuqa gelinaya dadkaas hataa haddaad mara ku caawiso qof sinaysanaya dharqaaqaawan aad u furto meel baad u samaysay lagu caweeyo haashiishadaa lagu calaa meeshaan makhaayadaan baad u samaysay gabdhihii wiilal baa isugu yimid gurigan waa lagu baadheeya waa lagu qayilaa waxaad ogaataa waxaa tahay kuwa Allah uu yiri in alladheena yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladheena aamanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun haddaad jeceshahay inaad dadka fasahaadisid cadaab ku bishaarayso weligaana ma liibaanaysid Allahna uu ku ogyahay qolada dadka ugu dambaysana waa maxay waa dadka reeba war iska daaya war zina wa al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar zinada waxa isaga ilaalisaa kow aragaaga laab indhahaaga qarso ha fiirin haddaad aragto qof qurux badan oo ku cajabiya ha fiirin indhahaaga hoos u dhig
indhahaaga ka adkow haddaad tv-ga aragtid naa qaawan ama nin qaawan haddaad aragtid indhaha la raacin ogow markaad fiirisid wallahi dhibicda ugu horeyso qalbigaa ku dhacda waa maxay iimaankii oo lagaa siiba iyo qalbi ingey haoyn haddow hadhiin haddow madaxay xanuuna ma seexdo buufis baan qabaa maxaa tv-ga ku kor fariisiyey iyo macsiyada qodobka labaad waa maxay cadamu likhtilaaq waxaad iska ilaalisaa ragga iyo dumarka isdhexgelaya iska ilaali inaad rag la sheekaysato dumar la sheekaysa ikhtilaadka iska ilaali nabiga sallallahu alayhi wasallam ala la yakhluwanna rajulun biimra'atin illa an yakuna nakihan aw da mahram nin yusannaag la khalwoonin illa inuu qabo ama inuu mahram u yahay ma ahna wax kale iska daa guriga la isla fariisanayo meelaha cilada oo la isla tagaayo gabdhaha wiilasha markay saaka su'aasha ugu horeysa waa maxay let's go out banaanka aan aadno meel waa la isqarinaya mas'alada kale oo zinada ka cidnaysa waxa weeye guurso haddaad dareen qabtid guurso maxay dhalinyarada u guursan laayihiin gabdha firi ay haystaan gabdhihi naba firi ay haystaan qofka ugu yar waa qofka telefoonka ugu sheekeeya iska daa guurso haddii ilaahay uu aad awood haysatid maxaa kale waa mas'alada ugu daran cadamu tabaruj wasufuur qaaqaawinta la iska ilaaliyo subxaan allah mujtamacii wuu faabahaya dadba meeshaan oo kale imaanaya public am xaadira ka jirta isa soo qurxiysa soo qaawinay nin kasta oo jirkaaga fiiriyo wuu kaazinaysta zaaniyad baa tahay adiguna iska daa wax kale haddaad cadar ismarisa ama barfuum ama bukuur oo nin agtaada maraya uu ku bukuuriyo uu ku uriyo ilaahuma niqaabnaati zaaniyad baa tahay ku bishaarayso waa xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahuma dhammaanteen ahaano waa khasab waa zino mas'alada ugu dambaysa waxa weeye tarku lkhuduuci bilqowl hadalka jilicsan iska ilaali hadalkaagana formal ha ahaado arkaysa wiil iyo gabar wuxuu leeyahay abaaye macaanto aboo macaan guri macaankeeda la dhamiyey guri macaankiisa la dhamisa fiiri waa zinadii baa la qurxinayaa war waa maxay tahay waxaan maya hadda waxaa soo baxdayba hani iyo sweetheart iyo san iyo waxaan inuu qofku daldalo tagis masaajida ay ciyaalkiinu dirayaan fiiriya telefoonada ay ku hadlayaan dhegaysta waxa ay ku hadlayaan dhegaysta gurigaagaa zina ku camiran aduu ma ogid wiilkii wuu zinaysanaya waa qayd zinaa gabadhi way zinaysanaysa waa qayd zinaa gurigii zinaa ka dhex socota aduu waxaad lehaystaa zino inuu nin guriga yimaado gabdhaha kaa fulfulo ma aha intaa keliya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo zinada muuqata iyo midda qarsoonba quluubteennana uu daahiriyo mujtamaceennana uu daahiriyo gabdhaheenna iyo wiilasheennana inuu ilaaliyo wallahu yaqulu xaqa wayahdi sabiil wabillahi tawfiiq جزاه الله خيرا الشيخ عبد الرزاق محاضرة قيم كهيد وإنه جدي وكان ليس زينة خطورة الذين هداهم الله